السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالين وعن أسبوع وعن إن شاء الله تعالى وتكون أسنتين داوشة فيديوغان waxaan muraajacin doonaa isbuuca soo socda insha allahu tacaala suuqa iyo structurekiisa hadduu aleedma insha allah isla socod wanaagsan. Last week isbuucii hadda u dambeeyey oo waxaad arki kartaa dollarka in qiimihiisa oo kor u kacay kaasoo keentay in interest rate-kii lagu kordhiyo boqolkiiba 25% 0.25% in lagu kordhiyo. waxaad aragtaa in qiimihii uu kor aaday USD inuu kor aaday. A lot of waxaa soo baxay newses oo ku jiro pound oo ku jiro Canadian oo ku jiro last Friday hadda oo daraad ahayd oo Canadian ka baad aragtaa inuu qiimo kor aaday lacagii kalena ay soo dhaceen sida USD Canadian Euro Canadian. waxaa ka mid ah New Zealand oo last week isagana u soo baxay interest rate-kiisa. insha allahu tacaala in this week waxaan rajayn doonaa inuu waxaa la filanayaa maadaama bil kow ay noqon doonto tomorrow inuu soo baxo November-ka. isbuuc walba ugu horeeyo November-ka baa soo baxo Friday-da insha allahu tacaala. November-ka baan arki doonaa. waxaa kaloo jiro Australian-ka oo interest rate baa u jiro, waxaa u jiro racial sales-ka, so a lot of news baa jiro insha allahu tacaala. ka faa'iidaysi wacan siiba badana interest rate-ka waxaa fiican as muslim ahaan inaan ka digtoonaano hadduu alla idmo insha allahu tacaala. marka isagana in aad iyo aad looga digtoonaado. Then aan ku bilaabo USD switch daily haddaad aragtaan qiimihii waxaad aragtaa inuu ilaa hadda uu ku jiro buy uu ku jiro qiimaha dollarka sidiisa banaanba inuu qiimo kor aadaya baarije u badan tahay insha allah. last this weekna uu jiro November-ka oo imaan doono. xitaa hadda waxaad aragtaa inay soo qorayaan it look like the perfect storm that relate with the USD interest rate increase in Wednesday arbacadii in rate la kordhiyay and the upcoming November in Friday. November-ku asagana jimcada imaan doono. dollarka marka wuxuu u muuqdaa in micnaa mid faa'iido fiican iyo waxyaalo badan laga dhalin doono insha allahu tacaala. wax badanaan isbedeli doona November-ka. oilka xitaa waa isbedeli doonaa, waxaa isbedeli doona goldiga isbedeli doona, a lot of things baa isbedeli doona insha allah. USD switch haddaad aragto qiimaha down trade buu ku jiray. hadda waxaad aragtaa inuu correction camal sameynayo qiimihii kor u socdo. qiimaha marka structure-ka hadda down trade buu ku jiraa insha allah. ilaa markii saddexaad buu taabtay qorigan yarka ah waa uu ka yara baxay laakiin in qiimahan ilaa dhowr jeer markii saddexaad buu taabtay. markii saddexaadna insha allahu tacaala inuu inta kasoo laabto baan rajaynaynaa. USD switch in this area this sell 0.9860 areas this sell area or resistance oo ka dhigto insha allah oo laga celiyo qiimaha. waxaan rajaynaynaa inuu qiimaha ilaa hoos u soo dhaco insha allah. weliba waxaad aragtaa support here so in this waxa waaye uu ku wareegay qiimihii dhowr jeer. marka insha allah in this area xitaa waxaad aragtaa in qiimihii markuu kasoo laabtay mar kale uu isku dayay resistance inuu ka dhigto maadaama support hore ay ahayd oo qiimihii hoos u soo degay then la soo riday. marka insha allah USD switch insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in qiimaha inuu in that area laga soo rido hadduu alla idmo insha allahu tacaala. aan fiirino USD Canadian insha allahu tacaala isagana oo qiimihiisa sidan u samaysan down trade insha allah. saddex siyaaboodba ilaa laba siyaaboodba uu samayn karaa qiimaha. inuu qiimaha in this area in laga celiyo oo hadda uu joogo mar kale oo oo ka dhigto triple bottom inuu ka dhigto. after that qiimaha correction yar uu sameeyo ilaa kor oo yara aado insha allah. haddii kale in qiimaha mar kale oo isagana uu sameeyo toos inuu soo baxo then after that qiimaha markuu toos hoos u soo baxo buy area haddii aad aragto insha allah inuu mar kale resistance area oo ka dhigto insha allahu tacaala.
but waxaan rajeyn doonaa qiimihii qofkii sel soo galay last Friday-da waan sheegay qiimaha eridan baan ku sugeynay mar allaale markii uu imaaday oo soo dardaray newskii baan imaaday oo Canadianka soo markii waa -15 pips loss baan uga baxay aniga xaggiisa maasha Allah teamka Alphas 7 pips waxa looga qabtay maasha Allah $19 marka waxaad aragtaa scalping inuu sometimes newsida oo aad ugu fiican yahay waa qofkii perfect ku ah ama suuqa fahma haduu alla insha Allah USD Canadian isagana insha Allah ta'ala in this area by area up to here in this area waan ku sugi karnaa laakiin qiimaha exactly inuu si toos u soo aadi doono ma rajeynayo insha Allah inuu qiimaha meelahan ku yara laabto after that qiimaha ilaa inta in la keeno waa suurtagal 1.25 ilaa 1.26 insha Allah ta'ala in this week hadii kale the next week insha Allah aan fiiriyo haduu alle insha Allah ta'ala euro USD isagana lacaga ugu firfircoon Europeanka insha Allah isagana waad aragtaa in qiimihii mar kale oo la soo celiyay وقيمه uptrend وكجري قيمه marka la soo celiyo soo dhacay maadaama waxaad aragtaa European kaniisadii soo baxay CPI-ga iyo waxyaalo badan inay isbedeleen last week sidoo kale interest rate kana oo sababay in qiimi maadaama dollar kor loo qaaday euro USD idana inay soo dhacday so asxaab badan waa ka faa'iideysteen insha Allah ta'ala in this week isagana waxaan isha baan ku heen doonaa haduu alla idmo hadii qiimaha oo muxuu ahay toos hadda sida dadku selka ugu jira maasha Allah qofkii laakiin signal kale wax yar ka raadinaa insha Allah hadii qiimaha in this area ama meelahan oo kula laabto in qiimaha uu hoos u aadi doono hadii kalena insha Allah in this area by area no correction yar sameeyo waa markaad tagto muxuu ahay chartyada ugu yar yar markaad aragto muxuu ahay aad u fahmaysaa qiimaha sidee u kala socdaan iyo waxa sidee yihiin in downtrend inay yihiin uptrend inay yihiin haduu alla idmo insha Allah sidaas darteed marka qiimaha waxay ku fiican tahay time frame-yada sarsare inuu qofka uu ka soo bilaabo then markuu analysis uu ku sameeyo uu keeno time frame-yada yaryarka sida 4 hours-ka 2 hours-ka 1 hour-ka soo marka scalping-ka iyo muxuu ahay markuu meel walba ay ku saxan tahay 1 hour-ka 30 minutes 15 minutes-ka aad ku anfacay laakiin day trade iyo swing trade oo kala hada tahay monthly weekly daily anything waxa way qofku inuu analysis-kiisa uu soo sameeyo insha Allah so euro USD isagana waa rajeyn doonaa haduu alla insha Allah hadii kala qiimaha wax yar oo qori ka soo bixiyay in that area waa support area waa dhihi karnaa maadaama qiimihii down trade uu ku yaro jiro laakiin hadda up trend uu galay in qiimaha hadii oo meesha laga celiyo haduu alla idmo Monday-da tomorrow markii la furo suuqa in this area 1.16 ilaa 85 maalintii soo dhigay laakiin toos buu soo baxay in mar kale meelahan oo ka soo laaban doona haduu alla idmo insha Allah sida uu noo sheegay structure-ka iyo technical haduu alla idmo waxa kale oo fiirin doona pound USD insha Allah isagana waxaad aragtaa in qiimaha oo maasha Allah last week video-gii hore aan ku sharaxnay pound USD in this area in buy qofkii area ka galay maasha Allah qofkii kalena meelaha ka galay maasha Allah qofkii misgareeyna maasha Allah isagana in that area inuu tagi doono qiimaha uu ka soo laabo doono waxaad aragtaa in rejection lagu soo sameeyay meesha in rejection xitaa waxaan dhihi karnaa head left shoulder right shoulder so qof walba sidoo logic am psychologic oo isaga u fikiri doono insha Allah waliba waxaad aragtaa this muxuu qorigan dheerka ah inuu yahay in rejection lagu soo sameeyo doono qiimaha hoos loo soo celi doono aad aragtaa inuu si fiican soo dhacay waxayna ahayd mar kale hadii qiimaha in this area time frame-yada yarka iyo qofku markuu rabo inuu meel badan ka galo a lot of waxa sameynaysa structure oo ah
qiimaha maadaama scalping oo kale markaad tahay amba aad rabto qiimi scalping oo kale inaad ku sameyso aad wax ka qabato hadduu aleedno inaad a lot of structure ama inaad sawirato khariirado badan inaad sawirto si aad khariiradaas dhexdooda scalping aad uga dhex qabato aniga sidaas u sameeyay insha Allah so qofkii meel fiican ka soo galayna waxa waaye waa isagana aad iyo aad u fiican yahay marka waxaan rajeynaa in qiimaha in this area ama in this area 1.2959 haddii qiimaha laga celiyo mondayda xitaa poundka waxa u jiro news baa u jiro insha Allah isha ku haya isagana qiimaha inuu isbedel baan rajeynaynaa hadduu aleedmo waxaan kaloo fiirin doonaa hadduu aleedmo pound Australian isagana oo isbuucan isagana Australian uu jiro wax fiican qiimaha Australian-ka waxaad arki kartaa interest rate-ka Australian-ka qiimaha wax laguma kordhinayo sidii u badan tahay haddii lagu kordhiyo qiimaha pound Australian oo soo dhici doona Australian-ka maadaama uu kasoo horjeedo in haddii lagu kordhin waayna in qiimaha interest rate kuusan gaarin in qiimaha in this area 1.7974 ilaa in this area inuu imaan doono qiimaha 1.7930 hadduu imaadana insha Allah qiimaha muxuu ahay interest rate-kana uu la bedeli waayo pi laakiin interest rate ani ahaan iyo dadka muslimiinta kuma la talinayo in qiimaha ay ku trade gareeyaan laakiin ka hor iyo marka interest rate-ka maalintaas lagu trade gareeyo haddii price action-ka up lagu xiro insha Allah in qiimaha mar kale qofka Janiska maadaama support area in this area oo lagu tusay inuu qofka up buy oo galo insha Allah ta'ala pound Australian and video pound switch isagana pound switch isagana waa sidaan insha Allah ta'ala dailygiisa qiimaha waa aragtaa in this area resistance buu ahay oo ka gudbay qiimi up buu ku jira insha Allah ta'ala in this area inaan resistance ahaan oo aad aragto support inuu intuu yahay qiimaha haddii qiimaha inta laga soo celiyo 1.2865 haddii qiimaha laga soo celiyo waad aragto rejection daily ahaan iyo 4 hours iyo 2 hours qiimaha waxaad ku cabirtada inaad qiimaha markaas haddii news soo baxana sidoo kale in qiimaha uu qofku markaas uu galo insha Allah ta'ala sell area in this area haddii uu ka gudbo waxa waaye wait confirmation suga hadaada markii hore bay ku jirin waa mar walba aad inta aadan galin waxa fiican qofka marba support and resistance haduu imaado inaad iska hubiso haddii kale baas way kula tagaysaa hadduu aleedmo inferior gold isagana oo last week muxuu isagana aad iyo aad u fiicnay masha Allah last day Friday da groupka Somali online trader masha Allah in this area waan ku sugayna 1.18 in qiimaha aan sell limit balse kahor buu soo dhacay waa kana meelahan ka laabtay qiimihii masha Allah 1.1180 waa uu imaaday balse maxaad aragtay in qori rejection lagu sameeyay then aad aragto 4 saac kale ee bilowday masha Allah si fiican bay u socotaa qofkii kale I think mar walba waxa fiican in qofka uu la socdo structure-ka iyo analysis-ka iyo technical-ka iyo news-ka everything important waaye sidaas darteed marka insha Allah ta'ala goldiga sida structure-ku u samaysan yahay waxaa suurtagal ah in qiimaha in this area 1197 maadaama uu price action-kiisa uu ku xiray buy in qiimaha in this area uu tago after that qiimaha la soo celiyo qiimaha haddii mar la soo celiyo insha Allah inuu inta ku noqnoqdo then nin vampire-ka inuu lagu soo gaaro haddii laakiin qiimaha siduu u samaysan yahay qiimaha hadduu mar kale oo 1180 hadduu u jibiyo ilaa 1160 insha Allah ta'ala waa wax fiican baa laga qaban doonaa insha Allah goldi isagana sidaas baan rajeyn doonaa hadduusan sidiisa uga soo laaban qiimaha sidaas baan rajeyn doonaa insha Allah ta'ala be careful waxaa kamid ah lacagaha maanta fiirnayna oilka
oilka waad aragtaan in qiimaha uu up noqday maasha allah last day qiimaha waan sheegnay in la rajeynayo sanadkan in $100 ay gaarto halkii fuusto insha allah waa 74 bay ku dhowdahay I think 74 way ku dhowdahay 73.72 bay gaartay laakiin waa 74 waxba kama dhimno sintiyaal baa ka dhiman in this year waxaa macquula in $100 u gaaro laakiin haddii ay idin tuso dailyga oo kale insha allah dailyga waxaad aragtaan in laga soo celiyey 3 July ilaa 2 July in this muxuu ahay 18 haddii aad aragtaan qiimaha in laga soo celiyey 75.08 in 75.8 senti in laga soo celiyey qiimaha buy trend inuu ku dhisan yahay maasha allah waa kana oo hore ugu samaysnay qiimaha haddaad aragtana maasha allah waa kaya in mar kale oo uptrend 1 2 3 mara afraad haddii 77 uu kasii gudbo insha allah this year waxaa wuxuu u muuqdaa inuu aadi doono ama soo taaban doono $100 insha allahu tacaala haddii fursad kale way banaan tahay walow xitaa ninfan buyer uu jiro iyo waxyaalo badan sidaas darteeda marka waa u saameyn doonaa in qiimaha in this area 71 haddii qiimaha aad ku aragto amba 72.85 ilaa 80 oo qiimaha oo resistance oo ka dhigto waxaa waaye waa wax fiican baa laga filan doonaa hadduu alla idmo insha allahu tacaala wax fiican baa laga filan doonaa in qiimaha uu meel fiican aado 4 saac oo kale haddaad aragto waxaa waaye in this area bay kusoo aadi doontaayo oo muxuu ahay qiimaha uu yahay resistance ahay inuu support ka dhigto hadduu alla idmo insha allahu tacaala so be careful insha allah in this week waxaan rajeyn doonaa inaad big badan ka qaban doonto waxaa ka mid ah euro Australian isagana oo aan rabo isagana inaan fiirino last week isagana waa kana down trade kiisa maasha allah in this area 1.6240 walow xitaa uu interest I think inuu usoo baxay New Zealand waa wax interest rate usoo baxay so bilo baa loo soo bixay interest rate sorry New Zealand buu ahay balse two trade baan galna meeshaan alxamdulillah maadaama qiimaha meeshaan oo rejection kusoo sameeyey oo ixtiraamay after that qiimaha in this area mar kale oo waana sheegay in mar kale la trade gareyn karo hadduu qiimaha hoos u ku xiro maalintaas soo dhigay waad ku mahadsantihiin qofkii raacay qofkii kalena maasha allah isagana waxaa waaye waa rajey doonaa inuu mar kale oo ka faa'iidaysto maasha allah qiimi waa kana in wax yar kor u laabanayo baad ujeedaa laakiin qiimaha insha allahu tacaala haddii inta uu cuskado interest rate-ka intaan la gaarin oo imaado soo dhammaystiro walow xitaa waa kana 1.6031 aniga intaan uga baxay 42 ilaa 40 eheedaan rajeyna so qiimihii korbe u socotaa waad aragtaa haddii qiimaha intuu cuskado insha allahu tacaala another buy interest rate-ka markuu maalintaas ka baxo waxa ku furan another signal oo ah pulley setup insha allahu tacaala waxaa ka mid ah euro New Zealand oo isagana last week oo isagana aan trade gareynay last week waxaa waaye faa'iido ugu badan ilaa 450 waxaan ka qabtay only euro New Zealand iyo euro Australian aad aragtaa maasha allah 280 wuxuu ahay sidaan rajeynayo euro Australianka euro New Zealandka waa eeridan kala uga baxay maadaama oo ahay New Zealand interest rate uu soo baxay after that qiimihii aan arkay inuu wax yar New Zealand rate-ka oo dhaqdhaqaajinayo then aan mar kale aan galay maasha allah I think uu dhammaystiray meesha ugu talagalnay then waad aragtaa inuu qiimihii kor u laabtay aniga waan galay mar kale hadda waxaan ka hayaa 12 pips waan leegu xiray waxaan ka galay 1.7511 meelahaasaan ka galay marka waxaan rajeyn doonaa inuu qiimaha kor aadi doono hadduu alla idmo insha allahu tacaala oo ku laabto marka waxaa kaloo ka mid ah
Australian USD isagana aan fiirino last week oo aan trade gareynay isagana maasha allah waa kana oo videogii hore aan kusoo duubay in qiimaha hadduu meeshaas uu cuskado in qiimaha uu socday doono maasha allah waa kana waa uu soo dhacay alxamdulilah qiimihiina waa kana in this area waa support area haddii aad ku aragtaan dailyga insha allah waad kana in this area support waa la yar ixtiraam soo majeed supportiga then qiimihii wax yar buu socdaa maasha allah wax yar buu socdaa laakiin waxaan rajeyn doonaa Australianka haddii interest rate intaan la gaarin inuu qiimaha meesha u dhammaystiro wax yar sidaan mar kale uu sameeyo interest rate intaan la gaarin mar kale uu ku laabto interest rate-kana laga soo celiyo in qiimaha insha allahu tacaala sidaas u jibin doono qiimaha sidaas hadduu u jibiyna November-ka sub confirmation sax ah haddii November-ka dollarka uu kor aado Australian waxaa waaye waa maasha allah 150 ilaa 200 bips waa laga qaban karaa insha allah so isbuucan waxay idin rajeynayaa a lot of profit baa idin rajeynayaa iyo be careful halaga taxadaro suuqan insha allahu tacaala waad ku mahadsantihiin daawashada videogan waa aniga waa Sakariye ku magac dheer Xarbaawi aad u mahadsantihiin please subscribe like share and comment bye bye assalamu alaikum